dowlad wanaag baa laga dhigi karaa gabdhaha ka qaybgalka siyaasadda markay gabdhuhu siyaasadda soo galaan waxaa laga dhigi karaa runtii deganaan badan horta xasilooni siyaasadeed bay gabdhuhu keenaan nabadda baa yidhahdaa gabdhuhu waa bahluulo siyaasadda iska dhex taagan laakiin it is not gabdhuhu siyaasadda waxa waaye siyaasad degan bay khiyaaraan runtii in gabdhaha la caawiyo lagu caawiyo advocacy badan la siiyo loo sheegay inay isdoortaan yacni gabadhu in gabar ayadoo bartamaysa inay nin dooran ay gabar doorato maba ahanba annaga inaan qoonda raadina annagaba waa badannahay tan wax beddelaysa waa gabar tan ninka dooranaysa waa gabar gabdhuhu inay ayaga isdoortaan We're beginning to see it bear fruit in terms of the laws that have been adopted by Parliament. We've seen that the 30% quota has been included in the requirements for the submission of candidate lists for all levels of elections. We can say that the UN support has added value to ensuring women's representation, political representation in Somalia, but we recognize there is still much more work to be done together with civil society, with women's parliamentarians, and with the electoral management body itself in ensuring that this message is carried forward.